salaada soonka sakada waxyaabaha muhiimka ah siday u fahmaan weydiin nimco deegaanka Soomaalida wuxuu hooyi u yahay oo ku nool bulsho laga tira badan yahay dhanka luuqadda bulshadan oo bariga hore lagu tirin jiray dadka laxaad kale ayaa haatan caalamku u aqoonsaday inaysan ahayn dad laxaad la balse ay yihiin dad luuqad ahaan laga tira badan yahay dadkaanu ka hadlayno waa dadka maqal kale ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida bulshadan oo shacab iyo dawladba aan aad loo fahansaneyn xuquuqaha asaasiga ee ka maqan oo marnaba sidii loo baahnaa aan loo dhugan ayaa maalin walba la kulma dhibaatooyin sidii u heli lahaayeen adeegyada daruuriga u ah jiritaanka nolosha aadamaha sida caafimaadka waxbarashada cadaaladda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo taasi ay u dheer tahay takoorka iyo liiditaanka joogtada ah ee dadka kala kulmaan deegaanka Soomaalida oo ay ku yaalaan kumanaan goobood oo waxbarasho ama dugsi haddana ma jiro hal dugsi oo luuqadda midaarka ee dadka maqal kala wax lagu baro hal iskuul oo ku yaala magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka lehna hal fasal oo aan joogto wax loogu dhigin hal macallinna uu soo xaadiro ayaa ka shaqeeya ama ka jira deegaanka sida uu inoo xaqiijiyay Cabdifataax Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka iskood isku aasaasay ee horumarinta dadka maqal kale ee deegaanka iskuul kadigeela u gaara oo luuqadda ku baxa oo magaalada ku dhaxeela masar waxaan ku dhaxdaraa wax maqal ba ku dhaxdarna halkay iskuul magaciisa Xuseen Geere marka macallimiin luuqadda khibrad u leh malaha معلم بازوق كان معلم مد قومي ذاك الكلمة في سوماليا وحما ديقو حيروتي لك بحباين أفكودو هي محل كبار يباين أردد لها بس عمنان مع الكي بحودي طبعا كارور نما يومن طبعا كارور مكوسا وسوقوا لا تنتخي وساوي حوديها بس سوق الدرا نجيب محمد أحمد waxa uu ka mid yahay xubnaha ururkani ee firfircoon waana dadka tirada yar ee ku dadaalay iskood inay wax u bartaan iyagoo fasal u gooni ah aan helaynin oo wax la bartay arday caadi ah kooba dilay waa farad Xuseen Geere adigeenay barani farad markii la sideed ban gaaray sideed markaan gaaray kadib sagaalad Abdisalaam bali farad ay Abdisalaam markii la farad saan u galay Abdisalaam sagaalad saan u galay sinna ku bad markin ay تيفيجي القدام الزين ولكن تيفيجي ولا دمي لا مداركر مركا يدو سدا وسيفد إلا يو لبي طبانات أبسلم بكودمي كدب كلات زليفرز كلات مركا ديكتي واحد رزان ميسنين انت رزان ميسنين لا بس أنا برني حرفد مركا دمي كدب إلا يمك حسق ماركين كدب حاجة اللي كرسكم مطر يا في سومالي اللي حبلو ده أي كدب هذا ساد وقتي كدب إلا ميك وحسق معي ma helaan xogaha dawladda ee muhiim ku ah noloshooda sida go'aamada baarlamaanka ee maamulada awaamiirta xaaladaha degdega iyo fariimaha caafimaadka mana jira hal warbaahin ah oo luuqadooda gaarka wax ugu soo tabisa Cabdifataax Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka horumarinta dadka maqal kale oo muddo 6 sano isaga iyo dhalinyaro wax baratay u taagnaa inay u dhaqdhaqaaqaan bulshadan la hilmaamsan yahay ee maqal kale inkastoo isaga ku dhalanin maqal la'aanta oo dhalaannimo maqalka uu kaga tagay ayaa shacabka iyo hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahaynba ugu baaqaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka inta badan la soo darsa bulshada maqal kale ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxyaabahan iminka u baahan si degdeg ah waxkiimida maadaama xafiisku furan yahay 6 sano oo furnan si foolun tarjan ku shaqeynaan bil walba wax musaraqata meel loo qor meesan marka waxa baan santa ugu sareysa ururka gudi yaada marka gudi committee marka santa musar inoo sameeyo baana iyo proposal qorsaha lagu xabiyo si deegaanka dadka maqalka dhiman ugu wargelin in xafiisadka dhigala oo lagu talgelin usro
oo aan wacyigelin sameyn oo yihiin dad wax baran kara oo mustaqbal leh marka wacyigelin degdeg yaan u baahannahay. Ismaaciil Ibraahim Buurgabo, Universal TV, Jigjiga. dhibaatooyinka dadka maqal kala haysta ee deegaanka maxaad ku tilmaami lahayd? halkan waxaan uga hadlayaa dhibaatooyinkiisa dadka maqalka dhiman waxyaaba badan maadaama aan xafiisalan ilaa iyo 6 sano 6 sano qorshe walba aan diyaarino xafiisyadii qusisbaangeena waxaan sameyn karna waa sameyn markii la hadda qorshe lagu caawiyo Misr talabaad dadka dhigaala dhibaatooyin badan baa haysa waxaa kamid ah haddii suulka lagu daro xuquuqdooda iyo asaasiga gaarka ama helaan qof maqalka wax ka qaba wuxuu baahan yahay luqada sigaarka wax lagu baro marka qof aan luqadaas waargin ma lahan oo aan luqada af Soomaali xitaa ku hadli karin ayaa wax u dhigay marka dhibaatooyinkaas oo badan waan diyaarin cidii qusisay waan u geeyay inay wax ka qabtaan marka ilaa hadda waxa la weeyay ma laha mid kale dadka dhigaala badnakood waa dad danyar meelay fogfogay yimaadaan haddana isuulku ka fog yahay haddaan aroorti xilligiisu weli geli jiray labada aroornimo bayamanaan markii yimaadaan macallinkii wax baray isla waqtigii masago ardayda 2 saac manaan macallinkii wuxuu dhigay 10 aroornimo ayuu man 10 aroornimo ku soo sugo 20 daqiiqo say wax u dhigay bis soo kala dheeraa marka waa halka iskuul Xuseen Gira ka hadlaysa laakiin special manhaj ma jiro Soomaaliya deegaanka special need school for deaf ma jiro deegaanka iskuul dadka u gaara oo luqadooda ku baxa oo magaalada dadka ku dhaxeela Masar waxaan ku dhaxzaraa wax maqal baa ku dhaxzarna